wiilkan waxa uu ka soo jeedaa maamul goboleedka Puntland waxa uu sameeyay diyaarad caadi ah oo si toos ah u duulaysa waliba isaga oo Soomaaliya kula jooga haddaba halkee ayuu ka keenay qalabka uu ka sameeyay maxaa loo isticmaali karaa diyaaradiisa muuqaalkan ayaan kugu la wadaagayaa adiguna ha ilmaamin inaad like saarto oo aad asxaabtaada u share garayso wiilkan waxa lagu magacaabaa Axmed Shoodhe waxa uu ka soo jeedaa maamul goboleedka Puntland gaar ahaan magaalada Burtinle wiilkan sida aad arkaysiin waxa uu sameeyay diyaarad caadi ah oo si toos ah u duulaysa waana diyaaradii ugu horeysay ee nuuceeda ah ee Soomaaliya lagu sameeyo wiilkani qalabka iyo waxyaabaha uu diyaaradan ka sameeyay boqolkiiba 90 isaga ayaa farsameeyay oo gacantiisa ayuu ku soo saaray markii laga reebo motorkeeda oo wadanka dibadiisa ka keensaday oo sidaas diyaaradani wax ay ku noqonaysaa made in Soomaaliya by Axmed Shoodhe waxyaabaha diyaaradan loo isticmaali karo ama loo adeegsan karo waxa kamid ah in lagu duubo dhul aad u ballaaran oo lagu ilaaliyo oo waxa ay ku suurta gelinaysaa inaad aragto dhul aadan lug iyo gaari midna ku tagi karin waxaana isaga waardiyin kartaa cadow difaac kaafa ku jira adigoo ku xiraya kaamirado iyo qalabka wax duuba sidoo kale diyaaradda wiilkani sameeyay waxa loo isticmaali karaa waraabka beeraha markii aan kula yahay beer ayaa lagu waraabinayaa macnaheedu ma ahan in biyo lagu waraabinayo waxaad u adeegsan kartaa markii aad doonaysid in beertaada aad sun ku buufiso daawada ayaad ku xiraysaa si fudud ayayna beertaadii aadka u weyneed daawada kugu rushaynaysaa waxa kale oo aadka u muhiimka ah oo diyaaradan loo isticmaali kara waxa kamid ah delivery-ga ama in alaab meel laga qaado oo meel kale la geeyo markii laga soo tago in cuntooyinka iyo alaabaha caadiga ah oo dadku iibsadaan xaafadaha loogu geyn karo diyaaradan waxa kale oo aad u muhiim ah oo loo isticmaali karaa markii meel tuulo ah looga baahdo dhiig degdeg ah magaalooyinka waaweyn ayaa dhiig looga soo qaadin karaa oo tuuladii looga baahnaa lagu geyn karaa waxayna 15 daqiiqo u soconaysaa meel gaarigu uu 2 saacadood u socdo oo si degdeg ah ayay ku geynaysaa faa'iidooyinkaas iyo kuwa kale oo badan oo intaan lagu soo koobi karin ayaa diyaaradan loo isticmaali karaa waxayna u baahan tahay diyaaradani horumarin iyo in la maalgeliyo wiilkan oo dawladda Soomaaliya ay ninkan ka faa'iideysato isagana ay uga faa'iideydo wiilkan Axmed ee diyaaradan sameeyay wadanka ay wax ku bartay oo aad dareemi kartid tayada waxbarashada wadankan intay la eg tahay waxaanu u baahan yahay inuu helo waxbarasho midaan ka tayada badan oo heer caalami ah waana rajaynayaa in dawladda Soomaaliya ay wiilkan isha ku hayn doonto oo ay ka faa'iideysan doonto maskaxdiisa iyo wax soo saarkiisa dawladda waxa aad ugu sahlan in wiilkan ay wadan kale waxbarasho u geeyaan xitaa si free ah waxaana ku filan hal warqad oo ay u qoraan dawladaha ku fiican culumta noocan ah sida Turkiga Ruushka Shiinaha iyo Japan oo kale insha Allah waan rajaynaynaa in midaas ay dhici doonto oo wiilkan aan arki doono isagoo diyaarada waaweyn oo rakaab qaadaya sameyn kara ama daroono casri ah oo ciidamada Soomaaliya lagu qalabayn doono cadawgeedina ay isaga cili doonto wiilkan isagana waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala maskaxdaada ku barakeeyo wax soo saar fiican waan ka sugeynaa aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum ma ka raadinaysaa guri iiba degmooyinka ugu kabaca fiican Muqdisho annaga ayaa si joogto ah u soo bandhignay guryaha iyo dhulalka ugu fiican xamar kuwaas oo leh sharciyad buuxda aadna ku maalgashan karto hantidaada waxaan ka saacidnaa bulshada u soo gudbinta fursadaha guri iyo kuwa dhulal ee laga heli karo meelaha muhiimka ah annagoo ku hagna qofka macaamilka ah qaadashada go'aanka ugu habboon halkan oo ah boga Macaash Real Estate waa meesha saxda ah ee aan soo gelino macluumaadka jaanisida guri ee diyaarka ah soo booqo si aad uga bogato wixii faahfaahin dheeriya noo kale WhatsApp-ka ama xarunteena ku taala Bakaaro gaar ahaan wadada Abaa Horeera mahadsanid